بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا مقعيقو ياهي محمد أحمد نور. قبطان waxaan ku duubayaa gabay leeyahada makaab oo daba socda silsiladii ina macalin ciise ee uu xuriyay abwaan khaliif faarax xayir runtii kuma dheeraan doona qaabkii looga hadlay iyo maandhaafkii dhalinyaradii iga horeysay ay isku qabteen anigu qaab ka bedel baan uga hadlayaa waxaan u arkaa raggii iga horeeyay in sugaanta xeerkeedii ay ka leexdeen waxa weeyaan waxa mamnuuca gabadh nin doonay oo doonan in la dhaho ana u sharaxan iyo ana ku riyooday iyo mijabaasta weeyaan waxa aad u falx dumarka wax badan baa lagu matalaa xurriyada lagu matalaa calanka lagu matalaa wadaniyada lagu matalaa dhulka lagu matalaa nabadda lagu matalaa colaadda lagu matalaa waa sax la abuurkii ku matalay wax ceeba ma uusan samaynin khaladna ma aysan lahayn marka mar raba inaan u simacnayo dadka sugaanta dadku iyaga turjumtay laakiin looma turjumo waxaad madad dhalinyarada aad ugu dheeranayaan jiiftooyinkii iyo maqalay warlayd in aad u turjumayaan gabaygan waxa leeyahay makaab saan idin sheegay macna badan uu ka hadlayaa dhageysi haboon miiga gabayga maaxdii murtida mudashadii maanso aan magobiyo miileeda waan maraq furayaa markihiina horsada mucdaan idin mukhuursiinay nin baa yidhi hashaa maan gadaya magan alle maanta maan saar inay miratay baan mihindisayaa murtidaada iyo sawdka ood marisay meeshiisa mahad baad ka qaadaa intii lagu muteeyay macna male haddaad meel cidla ah mala awaashay manficiyo hadday mar hadleen marag maqaarleeyde makri iyo madoobaad cirkiyo moosu dumay ceebdhe makaab jabay hidaho maayacay iyo magac dilkeenii afarta sidii mooda galab midabadaydii miga roob mahiigaan curtay iyo muguddo aygii mishmish xareed iyo manqaad midhiftirkaygii macnihii abwaannimo markii meesha laga saaray midaan mudan markuu maalay bay marashay hawshii miisaan gabay masaafiyo haddii hees la muransiiyey maqalay warlaay iyo haddaan saar la kala miidhin sayid maxamed baa mootan iyo magacyaweyntii meeriskii xuseen faarax iyo maaxdii gabay hawle madadu qabaan maakibay iyo raagad maqasheen cilmi carab ismaaciil mire iyo marinkii aw muuse suldaantima cadde baa miigana maalin madaleed cali oday muftaaxii murtida lagu mataaneeyey maxamuud mugii beenaley mudashadii saahid camajiyo makaytiyo in badan maqashay wiilwaale yamyam iyo gahaydh buu makalay seefla malagi mahmaahdii eegaan arkaa macallin dhoodane macno male kumoodmood ifkiyo duni macaankeed mawd iyo masiibaa jirta oon cidi ka maagayne mid ka mayda moo lagu rido oo maahan baa jire mara lagugu mookeeyey baad maal la hooyataay mulkigaagu waa marag dhaxla iyo maydhax rugsamay jannaan milicsanayaa mirqaan midhihii khayrkiiye naga maanac mawlow cadaab kaaga maganti mulacaa madada jiibsaday ee milicda jiidhaya iyo maydal geel oo mirtay oo ku isku miiloobay macna siman mataal calafku waa maamulka ilaah miliqshaanka aar oo ilkaha micida soo faystay mukulaal markaa dhalatay oo mawda tabinaysa macna siman mataal calafku waa maamulka ilaah nin diyaarad maamulahaya oo dunida maansheeyey iyo kaa madoobaha dameer hagi makaynaya macna siman mataal calafku waa maamulka ilaah maalqabeen malyuumaad dhaqdo moodka iyo noolle iyo kaa miskiina ee mariyo moora ka idlaatay macna siman mataal calafku waa maamulka ilaah murtiyahan khaliif iyo yartaa miratay maankiisa mar hadduu mariimay oo marwadu joogta midigtiisa oo macallin ciisena mulkiyey maalkii laga siiyey milgaheenna soomaaliyeed amase diinteenna waa inuu ka maagtaa naflihii milicsanayaa war ma macawisbaa gabadhanay 10 nin meertaysay maangaabku waa maxay dadka mala riyoonaya mahmah mug weyn baa tiraa hadalla miisaaman madal ruuxa tagaya inuu muuqdo waa sharaf ama waa maqnow meesha waa la ismitimiyaa macna keena suugaantu waa midho awowgeene ama aamusaay ceebta waa la iska moosaay murtidaada iyo sawdka ood marisa meeshiisa mahad baad ka qaadaa intii lagu muteeyay macna male haddaad meel cidla ah mala awaashay manficiyo hadday mar hadleen marag maqaarleeyde
makri iyo madoobaad cirkiyo moo sudumay ceebdhe makaab jabay hidaho maayacay iyo magac dilkeeni dheh aad baad u mahadsantihiin gabaygan waa gabay jiib ah inaan ku qaado qaabka laxanka sida jiiftadoo kale ah waxa keenaya murtidii iyo sugaantii Soomaalida oo maanta sii dhibanaysa runtii haddaan hadda gabaygan jiib ka dhigi lahaa waxa laga yaabaa inay dad badan dhageysteen dhalinyaradu waxay ku leeyihiin oo ay tala bixin ku soo bixinayaan ha laga dhigo sida maastada loo qaado waa sugaanta sii dirgo'aysa aad baad u mahadsantihiin kaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Nuur oo loo yaqaan Lambert. Thank you guys.